من صالحين تكبدا سلف هذه الأمة أيها وحال علماء كشكايان كتبتو كقرن يحي تاريخ ديسو حجك السعودية بالليل أما سفر بوها سهيدي با كغوداي سهيدي با لبا بيرو دخدودا isagoo hilin wadadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaax oo dariiq iska taala oo qaatay oo gaajoonayay oo ka baday xabad tufaaxi markuu ka baday calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yiri xaq naas baad cuntay ayaa ku fasaxay nuski kale iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqeynay uu ku yiri beertan ma adiga la maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u maleyn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiqo ku dhacay waan gaajoonay nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kan oo iska qabteen nuskan cunaha la iga cafiyay buu nuskana la iga qaato ninkii beerta lahaa baa anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maal qabeenkii halka buu degan yahay u tagay isaga hadduu ka cafinay isaga taala hadduu ka cafinay isaga u taala halkii buu ugu yimid markuu u waramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buu nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buu ilaa shuruud baan kugu xidhay hadda shuruudda aadii buuxisid uma ka cafin waa maxay shuruuddaas inan baan dhalay buu aqalka iga dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shanta arrimood ee ku sheegay le haddaad iga guursato baan kaa cafin haddii kalena nuskayga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeelahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ma sheega way adag tahay soo maaha war nuskaasi nuskayga aakhirahan la taga buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqaya maciduu saaruu rabaad odhan lahayd maciduu dul saaruu rabay laakiin ninkan waa nin muumin aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamaya xadiidkii nabi maxamed ee ahaa luqmad xaaraan qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankan waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraan ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku yiri taabu markaa ka fikiraya saxaabni kale waan guursan buu yiri ma leega cafin ha aqdigu markuu dhaco waan ka cafinayna inta ka horeysase ka cafin maayo ninka dhalinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan Soomaha oo cad oo dheer oo laankaayo ma sha Allah ha ninkana gabar macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaas aqdigii lagu dhiftay markaas waxa odagii baa idhaa hadda mar haddii aqdigii dhacay waa ka saamaxay aroosna waa tahay inantii waa taqolka ku jirta way ku sugaysaa orada u galbu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isaga markaas la sii hadlay wuxuu yiri haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad is hortaagtana ku arki mayso haddaad maarataanay adu qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqdo gacan ma hayso haddaad ka ictiraada kici mayso markaa buu yiri maxaa la samayn marba waad ku jirtaa waad gashay ilaahay baana kula soo doontay aakhira naarta ka badbaadide iska salaam malaa'ikta ilaahay ba ku jawaabi doontay darka abu soo galay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markaas aqalka bartamihiisa waxa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo maleynaayo xooral cayn samada ka soo dhacda inay tahay oo wixii la sheegay oo dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaas uu joogsaday malaha ana qaldan oo qol kale ayaa soo galay maaya bay ku tiri zawjadaadii baan hay in kale bay ku tiri markaas uu ku aabaha sidoo igu sheegay si ka duwan bay u dhacday xantu waa xaraam bay ku tiri aabaha ya xaman waxa uu ka yiri aniga ii sheegana ku jawaabiye ma aragto igu yiri sawdagay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiye ma aragto weeyaan oo ragga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo
wax ilaahay nabi maxamed ka cadhaysiinaya ma maqasho weeyaan ma hadasho oo dikri iyo quraan iyo hadal annaka inagula hadlaysa mooyaane hadal ilaahay ka cadhaysiinaya kuma hadasho ma qabato oo nin ajaaniba weligeed gacanteeda kumay qaban ma socoto oo lugaheega meel ilaahay u ka cadhoonayo umay adeegsanoo lugaheega kumay marin buu yidhi sidaas waa bahay u jeedaa si kale hamoodin bay ku tidhi waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib meeluusan ka filaynin ayaa arsaaqada ilaahay ka siiyey beertii baa la siiyey gabadhii maalqabeenku u dhalayna waa loo dhisay acdam min haadaa baa la waxaa ka sii qiimo badan oo ka sii weyn ninkaa saalix ee weliga ahaa iyo gabadhaa mutiicadda ahayd ee aabbaheed iyo hooyadeed talada aabbihii hooye ku guuraysay ee taladeeda aanan ku socon ee talada labada waalid aqalka u fadhidayna waxay ku curteen labadaa qof markay isku tageen imaamul acdam bay ku curteen imaam xaniifa imaamul acdam imaam nucmaan binu thaabit imaam xaniifa imaamka a'immadoo dhan imaamka uu ahaa ee imaam maaligna wax baray ee imaam maaligna imaam shaafici uu wax sii baray shaaficina imaam axmed uu wax sii baray imaamul a'imma baa la yidhahdaa waa imaamul fuqahaa sheekhaasee gabadhii iyo ninkaas saalixa markay isku tageen weligaa ilaahay ee cilmigiisu maanta adduunkao dhan uu buuxiyey ee faqiiha ahaa ayaa ilaahay labadaa qof ka soo dhex saaray war walaalayaal dhallinyaray haddaan ilaahay ka cabsoonno oon ilaahay dhab u rumayno oon daacadda ilaahay ku dadaalno oo sida ilaahay naga raba aan yeelno sidaan doonaynaa nolosha adduunyada innankana laynooga dhigi